iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugnaayeen khubaro ku xeel dheer arrimaha taariikhda khubaradaasi oo maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax ku soo bandhigay xabaal wadareedyo goobtii laga helay xabaal wadareedyadan ayaa waxa ku sugnaa oo si taariikh leh uga hadlay xaaladan mas'uuliyiin ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiqani Maxamuud Caateeye iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Axmed Dhagax Cabdinaasir waxa uu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Axmed Dhagax waxaana hadaladiisii kamid ahaa goobtan aynu joognaa maanta waxa weeyaan degmada Axmed Dhagax xaafadda Siinay oo degmada xukuumadda mas'uulka ka mid tahay inta ay markaan joogno guryaha dhisan xataa ku dhooda qaar baa dhinaca kaga jira xabaalaha oo dhisan oo markaa kulli aan tali jiray aan ka dul qaadno si horeba oo sheegay dadkana dadkii ay dhaadkii lagu xasuuqay magaalada oo ka baxaya magaalada laga ururiyay dadkan marka ilaahay uu naxariisto mujaahidiin bay kuwan qudhoodu waa mujaahidiinta ilaahay uu naxariisto gacan ka xaq daran ma leysay horta halkay jawaan ku doonaabay marka horeba oo inaan murminba oo inuu doonano inaan halka fadhiine inuu marka halkay jawaan ku doonaabay horta imka abaalkeena inoo soo baahnaan idhaahdaan anaga xukunay anaga caynkan marka iska hadhayn iska joognay dhibta horta marka inay sii wadaan xaq bay u leeyihiin marka imka Soomaaliland waxaan lahaan kulli hawta bulshaysato nimankaasi looga daba tagi lahaa gacanteena ma gacan kale lagu soo qaban kar maayo gacanteena seen ugu soo qaban lahayn dhanka kale waxa goobtaasi ka hadlay mid kamid ah gudidii hore ee baaritaanka xasuuqii loo geystay Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Daahir waxaana hadaladiisii kamid ahaa halkan waxay ahayd meeshii loo jeeray barka ereyadan iminkaan joognaa 1998kii iyo 1998kii dadkii lagu laayay weeyaan iyo 1998kii 89kii horaantiisii dadkii halkan inta la soo ururiyay lagu laayay waxay ahaayeen oo anigu aan xoggaal ka ahaayo guddiga xasuuqa oo ee hore 97kii iyo 98kii markii la ogaaday inay jiraan dad sidaa awalba la sheegi jiray guddiga loo sameeyay la abuuray in guddi loo sameeyo oo dabagal sameeyo cadaymihii iyo markhaatiyadii iyo daatadii iyo xabaalihii laftoodii in wax laga duubo waqtigaas baan ayaan muddo la shaqeeyay sidoo kale waxaa si qiiro leh uga hadlay xabaal wadareedyadan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo mar labaad fariin toos ah u diray dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya waxaana hadaladiisii kamid ahaa marka horeysa horta Ilaahay uu naxariisto dadka xaq darrada ku dhintay ee isirka loo dilay Ilaahay uu naxariisto subxaanahu wa ta'ala wuxuu mahadnaqayaa guddiga xasuuqa oo leeyahay wali waa gaabinaysaan 27 sano wali cidna ma inuu farta ku fiiqin waxaan jecelahay marka maadaama ay laba korneel mid daaqliga haysta mid madaxtooyada fadhiyo oo ragii soo dagaalamay ahaa in arrintan xasuuqan qarsoon inaguna tamar adduunka aan ku gaarsiino aan weynay waliba maanta inoo soo bu'aya Morgan halkan ka erinay Alex Meel erinay ayaa hadda inoo soo bu'aya waxaan idin sheegayaa oo waxa weey horta marka hore idin sheegay sharci qaraar ka soo baxay jaamacadda Arab maaweelo haddii aanaynu inaguna maanta aynu dad noqonayno midoobin oo aynu godobteena daba gelin oo aynu dalkeena aynu danta gaarka ka horeysan qabyaaladna quranka isku wadaan iska dhaafin riyadooda dhab noqon doonta sidoo kale waxa isna ka warbixiyay hawshan baaxad leh ee ay saaka soo bandhigeen gudoomiyaha khubaradii iyagu ku hawlnaa hawshan Frank Mora gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda injineer Cabdiqani Maxamuud Caateeye waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxa halkan fariin uga diraya guud ahaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana xasuusinayna in fal kasta oo arxandara ah oo loo geystay dadkeena oo noqonaysa taariikh lama ilaawaan ah oo xasuus aan duugoobin oo reebta jiilasha dambe ee nabadelaya anigoo ka duulaya jawaabtii dhaxalgalka ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u diray maamulka Muqdisho waxaan cadow kasta oo dalkaygu leeyahay xasuusinaynaa haddii madaxweynaha shalay hormood ka ahaa halgankii dalkayaga lagu xoreynayay oo ku suntanaa qaybna ka ah halyeeyadii gobonimada dhaliyay in ay waajib isaaran tahay anigoo kamid ahaa ubadkii ku 988 ka kan laga qaxay oo ilaa min Djibouti la geeyay hooyooyinku la qaxeen maanta waxaan diyaar u nahay inaan difaacno dhamaantayo ahna maanta wasiir dhalinyaro ah oo sodonaadkii ku jira dadkii ka badbaado maan ahayn oo ilaa Abubakar la mariyay ilaa Djibouti lu ku socotay hooyooyinkeen maanta waxaan leenahay dhamaan dadka Soomaaliland yaan la ilaamin tan nin dhalinyaro iyo mid weynba iyo mid imika dhashaba yaan ilaamin taa waxay bilaabeen in cunaqabatayn ay nagu bilaabaan oo intii hadhay cunaqabatayn saaraan horumarkii Soomaaliland hor istaagaan oo si jeesa uga hadla khayr iyo farmaajo waxaan leenahay sida doontaan u hadla ifcal maashiitum
waxaanuna idin leenahay waan guushuna annagayna raacaysaa mar walba waan idinka guulaysanaynaa bulshada caalamka waa inay Somaliland ictiraafaan waxa maadaama ay arkayaan labada faraq aan kala taaganahay anaga iyo Soomaaliya وصدام سعيد عبدي صدام واي أرق BC 24 TV Hargeysa